kulanti wanaagsan daawaday halkan waa barta wararka qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah dowladda federaalka oo ku dhawaaqday in garoon diyaaradeed oo cusub laga dhisayo Muqdisho. Jarnaal Indhacade oo ka sheekeeyay arrin ku qabsatay magaalada Muqdisho. Farmaajo oo lagula taliyay in laba arrin midkood uu xalliyo. Akhbaaraadka waxaa kamid ah Spain oo xabsiga dhigtay hogaamiyaasha Catalonia. Kusoo dhawaada daawadayaal qodobadii oo faahfaahsan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in garoon diyaaradeed oo cusub laga dhisayo magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiin ka kala socotay wasaaradda duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradaha duulista hawada ee maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ka qayb galay kulan shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Xubnahaas ayaa kulankooda waxa ay ugu arrinsanayeen halka laga dhisayo garoonka cusub oo loo weecinayo duulimaadyada garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde kadib markii uu batay ciriiriga garoonka Muqdisho. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay diyaarisay injineeradii dhisi lahaa garoonka cusub. Wasiir Omar ayaa kulanka ka sheegay in ay kordheen diyaaradaha ka dega garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho, taas oo sababtay ciriiri badan oo ka jira garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Sidoo kale wasiirku waxa uu xusay in dhismaha garoonka cusub ay soo gabagabeynayaan inta lagu jiro sanadkan 2019. guddi uusan shaacin magacyadooda iyo inta ruux ay ka kooban yihiin ayuu sheegay wasiir Omar in ay u magacaabeen ka shaqeynta dhismaha garoonka cusub. Jarnaal Indhacade ayaa ka sheekeeyay arrin ku qabsatay Muqdisho. Jarnaal Yuusuf Indhacade oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dhacdadii 14 Oktoobar iyadoo wax laga weydiiyay casharada ay ka baratay dowladda dhacdadaasi iyo waxa ay ugu faa'iideysatay shucuurtii dadka Muqdisho oo aad u gilgishay xasuuqii loo geystay. Indhacade ayaa sheegay in dowladda ay ka baratay oo kaliya in ay jarto wadooyinka ay isticmaali jireen shacabka dulman ee Muqdisho, halka kuwa uu ku sheegay arxan-laawayaasha ay dhankay ka soo gaaraan dadka reer Muqdisho ku xasuuqa. waxa uu sheegay in ay dalka ka jirto khibrad yari ciidan oo aad u baahsan. intuu hadlayay ayuu sheegay Jarnaal Indhacade ayaa sheegay in amniga Muqdisho uu yahay mid aad u liita, isagoo tusaale u soo qaatay weerarkii hoobiyaasha loo adeegsaday ee Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta Xalane, isagoo xusay in qoriga ugu ridida dheer oo ay haystaan in uu yahay hoobiyaha oo kaliya, isagoona marka ugu bato ay tiiridiisu tahay 8 kiiloomitir oo kaliya. Waxa isa soo taraya tallaabooyinka loo jeedinayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kuwaas oo ku saabsan dejinta iyo xal u helista xaaladda sii xumaanaysa ee maamulka Jubbaland. Siyaasiyiin, aqoon-yahano iyo mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo kala hadleen xaaladda Jubbaland, isla markaana ay siiyeen talooyin ku aadan xaaladda Jubbaland. talooyinka loo soo jeediyay madaxweyne Farmaajo ayaa ka koobnaa 2 qodob sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan xubnihii la kulmay madaxweyne Farmaajo. talooyinka waxaa kamid ah in madaxweyne Farmaajo uu tago magaalada Kismaayo kadib uu ogolaado doorashadii ka dhacday Kismaayo lana heshiiyo Jubbaland, isagoona qiraya inuu qalad ka dhacay labada dhinac haddana la saxayo. talada kale ee madaxweyne Farmaajo la siiyay waxaa kamid ah iyo in uu casilo xubno ka tirsan golaha wasiirada, gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, kuna eedeeyo wixii qalad ah oo ka dhacay isaga oo iska fogeynaya kadibna uu ogolaado doorashadii. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la tilmaamay inuu qaatay tallaabooyinkii loo soo jeediyay, balse lama hubo in uu fulin doono in kale. akhbaaraadka caalamka daawadayaal waxaa ka mid ah xilligan Spain oo xabsiga dhigtay hogaamiyaasha Catalonia. dibadbaxyo ayaa ka dhacay magaalada Barcelona kadib markii maxkamadda ugu sareysa Spain ay xukun ku riday 9 ka tirsan hogaamiyaasha Catalonia oo lagu xukumay 9 ilaa 13 sano oo xabsi ah.
guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barta wararka daawadayaal waanaga intaa haddaad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe si aad u hesho wararka iyo macluumaadka kale halkaan ku soo baahino